waxaa saakaroonidii hore booqday dugsiga hoose dhexe ee Amal oo kamid ah dugsiyada la mashiirto isla markaasina la mahadiyo tayadooda waxbarasho ee ku yaala magaalada Burco waxaana asaaska dugsiga iyo marxaladii kala duwan ay soo maray ka warbixinaya maamul Caydiid oo ah maamulka guud ee dugsiga waana kan isagoo ka warbixinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka ugu horeysa dugsigan magaciisa waxa la Amal Amal runtii waxaanu aasaasnay waqti ay gobolku u baahan yahay iskuulo tayo leh oo waxbarashada wuxuu ka bedeli karaa ama wuxuu ku soo kordhin karaa inta doonto ha noqotee asaaskiisu ugu horeeyay laakiin waqtigan uu qaadanay magaca Amal 2009 kii ahayd runtii waxaan doonaynaa inaan sameeyno arday tayadooda waxbarasho aad iyo aad u fiican tahay hadba la geliyo dadaalka la geliyo ay ardayuna ku soo baxaa waqtiga aanu bilownay waxaan ugu talagalay arday namuudaja oo muunada inaan sameeyno runtii wax badan way suurtagaleen waxna kulli insha Allah ta'ala way dhiman yihiin oo waan ku tala jiraa mustaqbalka insha Allah ta'ala dhameystirno waayo ardayga hadii wax la geliyo oo tayadiisa waxbarasho la hagaajiyo ama isku daydo ardaygaas mustaqbalkiisa insha Allah ta'ala markuu ka tago ama markuu meel kale ama dugsi sare dhameeyo inuu ardaygaasi isaafici karo oo meel mar sameyn karo waxay ku xidhan tahay wixii la geliyo ardayga marka xilligan oo asaasnay runtii maanta ardaydii wax ka baratay ayaa maanta dib uga shaqo gashay iskuulka oo runtii jaamacadii soo dhameeyay qaarkood taasina waxa weeye dadaalka ay macallin iyo maamulba ay muujiyeen runtii asaaska dugsiguna wuxuu ku bilaabmay maaha inaan u furanay faa'iido lacageed ama waxyaalaha la halmaala laakiin waxaan islahaynun baltayada waxbarasho intii awoodiina idinkuna inta ka qayb qaadan kartaan inaad ku soo kordhisaan gobolka ayaan horta marka hore u asaasnay runtiina waan naajaxna weeye meel fiican oo maraya arday aad u far badan baa dhigatay insha Allah ta'ala oo aad iyo aad u fiican dafcadii ka baxay dafcad waliba darajo fiican ay kaga baxday manhajkaanu qaadanaa waa manhajka dawladdu Soomaaliland oo iskuulada public iyo private baa u jaangoysay kaasaanu si fiican insha Allah ta'ala ugu dhaqanaa u qaadanaa siyaasadda waxbarashada ee Soomaaliland ay ka leedahay ama xukuumadda ay ka leedahayna si fiican baanu marka runtii ula jaan qaadnay ilaa maalintaanu aasaasnay ilaa iyo maanta maamul Caydiid waxa uu sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo ay kaga duwan yihiin dugsiyada kuwaas oo ay ka mid yihiin in iskuulku leeyahay qayb KG ama qaybta loo yaqaan barbaarinta carruurta sidoo kale waxa uu sheegay in dugsiga lagu barto Quraanka Kariimka runtii dugsiga waxyaalaha aanu islaana waxyaalaha dad qaar badan baa kaga gedisantiin waxa kamid ah in ardayga markuu warayso markuu yar yahay lagu aasaaso Quraanka oo xiisadda Quraanka ay noqoto xiisad aad iyo aad runtii u muhiim ah oo lagu dhiirigeliyo ardayda in Quraanka ay base ka soo bilaabaan maadaama ardaydii aanay chance badan isugu heleen macaamadaha qabtaan iskuulka qabtaan oo kale wax badan ay iska jiraan manhajkiina aanu ka fargareyno aan dhameystirno taas waxyaalaha ugu muhiimsan ee runtii aanu iskuulkan oo asaasnay kamid tahay ardayda dhigata waa arday runtii de aanu isleenahay maalintay marka ka baxaan ama eedka ka baxaan ama ay dhameystaan eedka dhameystaan waa arday runtii aan ku kalsoon waxbarashadooda ama tayadooda waxbarasho in meelun insha Allah ta'ala ku hirgelinayaan asaaska dugsiga saas oo ahaa qaabkaasaan u asaasnay iminku hadiraan joognana runtii waxaan ugu jirnaa inaan halka ka sii kordhino mooyee inaan hoos uga soo noqono ma doonayno inaan macallimiinta tayada leh macallinka isagoo macallina ayaa hadana madana macallinka wax lagu xisaabtamaya macallinka ilmaha aad u dhiibto si ikhlaas oo daacadnimo u soo saari karaya aqoontana gelin karaya ku dhiirigelinay ardaygan inuu wixii si fiican insha Allah ta'ala u gaarsiiyo ardaygana uu qaato ardaygan wixii la geliyo dib u soo celiyo saadaradeed waxyaalaha ugu muhiimsan runtii asaaska dugsigu yahay ayna tahay inaan markaa ku sii dhiirigelino macallimiinta iyo waalidkuna ay nagula socdaan laana waxa weeye ardaygan wuxuu leeyahay saddex macallin buu leeyahay
macalinka dugsiga iyo macalinka waalidka guriga u jooga iyo macalinka suuqa waxa maanta bulshadeena mushkilad ku haya ama dhibaatooyin badan ku haya macalinka suuqa waxa way ardaygu wuxuu arkaya kii xumaa buu arkaya kii waxbarasho doonayn buu arkaya kii akhlaaq xumaa buu suuqa ku arkaya dhaqanno iyo waxyaalo badan aan lahayna aan dhaqan islaamkeena ku fiicnayn bulshadeena ku fiican wayna soo gashay taasina waxa weeye ta ardaygana markaa taxaddiga ku haysa ama dhibaatooyinka hortaagan ardaydeena waxbarashada sii xoojiyaan taasaa ka mid ah maamul Caydiid ayaa sheegay inay ku dadaalaan inay ardayda ilaaliyaan dhaqankooda iyo diintooda isla markaana ay soo saaraan arday tayadooda waxbarasho u sareyso marka taan dhaqanka noocaasana in day waalid ahaan iyo macallin ahaan ba la dagaalano wasaaradda waxbarashada la dagaalanto waa iskuuladu la dagaalamaan weeye way marka soo dhaqanka ilmuhu isbedelo ummadu akhlaaq haddii akhlaaqdoodu lunto ama dhaqankoodu lumo waxbarashada waxba ka keeni maayaan taanagu ku dadaala marka waxa weeyaan ardayga akhlaaqdiisa iyo tacliintiisa labadaba wada socdaan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala markaas uu noo barakeeyo oo ubadkii dee ay noqoto ubadkana la ku aaminay inay si fiican insha Allah ta'ala dhaqankooda iyo diintooda u haystaan waxbarashadoodina ay tayadooda waxbarashaan laabaan ta ugu muhiimsan waa taa ugu dambeyn maamul Caydiid waxa uu sheegay in dugsigu mar walba uu diyaar yahay inuu qaato jil cusub isla markaasina sanad dugsiyeed kasta ay qaataan arday tiradoodu aad u sareyso taan waa asaasanina waa taa mar walba iskuulkuna wuxuu diyaar u yahay inuu arday cusub iyo jiilal cusub inta uu qaato way ilaa KG ilaa iyo magranaysa galaasada ugu dhaxay oo dhan waa iskuulku uu qaataa waxaan ugu talagalay KG-gu in marka hore waxyaalaha asaasiga lagu barbaariyo haddana tuu soo wareego haddana tuugi saasi leeg marka manhajka la jeexay iyada aan KG-du waliba aanay lahayn wasaaradda waxbarashada aanay manhaj u jeexin ay marayaan wasaaradda waxbarashada waxa dee silibiskeeda markaas galaaska laga bilaabo istaadar wanka weeye laakiin ma laha wax ka soo hooseeya wasaaradda waxbarashada badanaba ay u qorshaysay ma jirto laakiin iskuulku may ku xidhan tahay bal ilmaha yar ee aan welina galaas uladii gaadhin bal iskuulkaasi sidoo bal markaa gacanta u qaban lahaa ee uu soo barbaarin lahaa asagoo wax garanaya oo ilmihii yaraa oo soo yara barbaaray oo inuu galaaska wankii soo fadhiisto tani waa mid ka mid ah ardayda Amal Primary gaar ahaan ardayda fasalka 8aad waxa ay soo jeedinaysaa maaso ka hadlaysa sida ay dhalinyaradu dhaqanka uga tageen waxaana ka wacyigelinaysaa dhalinyarada inaanay qaadan dhaqamada laga soo waariday wadamo kale maasadaydu dhaqankay sahan iyo gaboodiyo dhufays iyo taahiil marna waa tusaaliyo toosin iyo wax sheegiyo tubta waxay tusaysaa dhalinta isqaawinta darajada u hayso dhaqan heelis weeyaan waxa aan sidaa gabay saakiyo wixii ore ruuxii dhageysta aan isleeyahay u hagi budjada sabeeyo diyaarad samaawiga rasaaskaaga soo rida nukliyeerka halista baasuukayaaliyo military ku soo gala waxa taa ka sii daran dhaqankoo sunoobe bulshada aksoonow filimada siloone saacadaha habeenkii sagaalada soconaya samalooma keenina la isku dhigayo waa gumaysi ugube yaan si fudud lagu askaarsiinta qayb baa loo sameystay duminayo inuu soonku ka buro asturaadda quruxda diinteenu saaciday si waxaan saluugsanahay hablaha sabanka joogay suuqyada ku raagiya kuwa soo sawiraya qaar ka sara jirkoodiyo qaybihii sirta ahaa askaarsiinta qaar iyo soo dhigay Facebook ilbaxnimada sabankani si loona qadhaadha siliskii hablaha iyo sidkii dumar lahaan jiray rag baa saaka qaato luquntood sudhayo waalidow barbaarta adiga masuule markuu tooso subaxii mariyuhu ku labistiyo saaxiibku raaciyo markuu soo hoyanayaba waa inaad su'aashaa mar haddaad islaam tahay adaa ka basareeye iska dhigida ruux kale sama laguma gaadhe wax kastood ka aragtaan santarleedka reer Yurub saaxiib ha qaadanin yuu tusaale kuu noqon hortayaad la socotaa yuu tusaale kuu noqon ruux salaada ka batagay yuu tusaale kuu noqon Soomaali baa tahay dhaqan suubanaad tahay ruux islaam baa tahay ingiriis tacdiisiyo Singapore ma dalan sinima wadaagtaan nisigiyo junuubaha sabab loo abuuriyo su'aalaha sugaayay ku sugnow kitaabkiyo dariiqii islaamko sunnahana hagees marin indhihiisana wadani maarkaan ilayskee mugdibay u haystaan waxa taa misaalo ah ninkii haysta dhaqankii islaamkee intuu xoore samihii geeskila u leexdee talaabada siloonee neef maquurshan moodaa indhaha aan siin karin sida uu xiirtee ilbaxnimo u haystee ku labisan saraawiil
jeex kaliita sharabaad markuu seexanayana bac soo urursiyo iga siiba leeyahay tani waa sahaale dawladeena sare caaqiliyo suldaaniyo booliis kolay tahay haddaan saaka laga hadal haddaan la iska kaashin maryo wada siloono asturaad lahayn iyo bac suusan laaxigi mar kale waa kuwan ardayda oo ka wacyigelinaya ardayda tahriibka isla markaasina ku luuqeynaya heeso hore looga alifay dhibaatada tahriibka daayirteenay maqala andar darmey maqala dal shisheeye madamba dal shisheeye madahba daayirteenay jooga hadullo wina jooga minna dumma hadoodilo minna doonta raaco dalka hortayaale yaa difaaci doona ninka dadka dilaalow ninka dollar qaatow anigu kollay waan duuli diyaarad baan raaci hargeysa cadday dusheediyo xebta berbera baan ku soo daagi da'yarteena allowda wixii walka allowda dumarkeena allowda wixii dalka allowda haddii ma weeyaan tahriibto qurbuhu hagardaama weeye haddana halisiyo dhibaato dadkii kama hawl yaraysto barbaariteennii huleelo hilinka taqade kuwa hanti loo afduubay kuwa hoganahaya jeelka miyaydan warar ka haynin miyan isagoo hubaala miyan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin masiibada la hoolin waayey hilfaha ummadii u qaaday dhibtaahii kiciisayuunka mid weeyahaan sii huraysaa maxay habla nacab ku hortay maxay haadaan ka tuurtay muxuu horar beer ka gooyey miyaydaan warar ka haynin daawadayaal intaas waxaan kusoo gabeynaya barnaamijkii gaarka ah ee aan ku booqday maanta dugsiga amal waxaa idin soo siinayay barnaamijka anigoo ah Khadar Xaaji Axmed tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan xiga dhammaantiin iyo dhammaanteeda waxaan idinkaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.